السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا قصة حديدة سمسة أيضا كسر هذا ما أنت متكمل 10 ديني على هراء وقتها وانجرتين يوتيوب كا 10 كين ما أنت وعنو كجاه بدونا Konjunktionen أو حريريال أما إنجليزي وحلو يقانو conjunctions. هذا ب10 كين ما أنت waxaynu kaga hadli doonaa xiriiriyeyaasha iyo sida ay hadalka u xiriiriyaan iyo sida loo isticmaali doono. kadibna fiidiyoga marka uu dhamaado qof walba waxa uu fahmi doonaa sida uu isticmaali doono xiriiriyeyaasha. haddaba daawasho wacan oo wanaagsan. casharkeena maanta waxaynu ka bilaabi doonaa halkan ayaynu ka bilaabi doonaa haddii aan soo qaato inagoo ka hadli doona uun xiriiriyeyaasha iyo sida ay af Soomaaliga ku noqon doonaan. Schwagana Hause guriga ayaan tagayaa. marka la isticmaalayo kelmadda faaqe schwagana Hause macnaha ama gaari baad ku tagaysaa ama tareen baad ku tagaysaa ama baaskiil baad ku tagaysaa. haddii uu qofku ku tagayo lugta waxa weeye schwagana Hause. haddaba schwagana Hause guriga ayaan tagayaa hadalkaasi waa hadal macno buuxa sameynaya. luqadda Jarmalkana waxaa la yiraahdaa Hauptsatz. Ingiriisiga waxaa la yiraahdaa main clause. marka waa hadal macno buuxa sameynaya. haddii aan soo qaato hadalka qalinka buluuga ku qoran ich arbeiten muss inaan shaqeeyo ay tahay ay noqonaysaa. marka inaan shaqeeyo ay tahay hadal macno buuxa sameynaya maaha. kaana waxaa la yiraahdaa Nebensatz ama waxa weeye hadal aan macno buuxa sameynin. ingiriisigana waxaa la yiraahdaa subordinate clause oo hadal aan macno buuxa sameynin oo waxa la ku tiirsanay oo hadalka hore ayuu ku tiirsan yahay. labada hadal waxa isku xiriirin doona xiriiriyaha opfol inkastoo inaan shaqeeyo ay tahay haddaan ka horeysino inkastoo inaan shaqeeyo ay tahay markaas ayuu hadalku macno buuxa sameynaya. marka labada hadal waxa isku xiriiriya xiriiriyaha opfol kadibna labadii hadal waxay noqonayaan laba hadal oo sidaas isugu tiirsan. schwagana Hause komadaasi waa muhiim. opfol inkastoo ich arbeiten muss ay tahay inaan shaqeeyo. marka labadiina hadal saas ay iskugu soo xiriirsamayaan. marka xiriiriyaashu qaarna waxay isku xiriiriyaan Hauptsatz iyo Nebensatz macnaha hadal macno buuxa sameynaya iyo hadal aan macno buuxa sameynayn bay qaar isku xiriiriyaan sida opfol oo kale. qaarna waxay isku xiriiriyaan laba hadal oo labaduba macno buuxa ay sameynayaan oo labaduba ay yihiin laba Hauptsatz. marka kuwan soo socda waxay noqon doonaan xiriiriyaasha isku xiriirin doona laba hadal oo labaduba macno buuxa ay sameynayaan oo ay labaduba yihiin Hauptsatz. intan ku qoran af Soomaaliga xiriiriyaasha isku xidha laba hadal oo macno buuxa sameynaya. xiriiriyaashaas waxaa ka mid ah und, oder, aber, sondern iyo den. af Soomaaliga iyaba u dhigantaa orana waxay noqonaysaa ama abana waxay noqonaysaa laakiin sondern waxay noqonaysaa laakiin waxaan ka doorbidayaa way noqonaysaa. marka sondern iyo aba waa isku macno dhow yihiin laakiin unbay noqonayaan labaduba. laakiin sondern had iyo jeer laakiin waxaan doorbidayaa bay noqonaysaa af Soomaaliga. oo had iyo jeer shayga hore lasoo sheegay midka waxa jabiya maaha ka dambe ayaad doorbidaysaa. waan arki doonaa af Soomaaliga iyo Dutchka sida ay Soomaaliga macnaha ay noqon doonto iyo tusaaleyada ku jirta. then waxa u dhigantaa file waa because maxaa yeelay weeye. marka waan arki doonaa iyagoo tusaalayaal ku jira. marka wadaan soo qaato schwagana Hause guriga ayaan tagayaa. du bleibst hier adiguna halkan ayaad joogaysaa. marka waa laba hadal buuxa labaduba. du bleibst hier halkan aad joogaysaa iyo schwagana Hause labaduba waa laba Hauptsatz. marka xiriiriyaashan imka soo socda dhan waxay ka hadli doonaan waxay isku xiriirin doonaan laba hadal labaduba macno buuxa ay sameynayaan. schwagana Hause guriga ayaan tagayaa und du bleibst hier
adiguna halkan ayaad joogaysaa. Marka on baas ku xiriirisay. Number 2, wir sind in die Stadt gegangen. Waxaanu tagnay magaalada. Und wir haben uns alles angesehen. Isla markaana waxaan anigu soo aragnay wax walba. Marka labaduba waa laba hobsats. Wir sind in die Stadt gegangen und wir haben uns alles angesehen. wax walba waan soo aragnay. Marka had iyo jeer xiriiriyaasha waxaan u kala saari doonaa xiriiriyaal ficilka xagga dambe ku tuura oo xagga dambe ficilku u tegi doono iyo xiriiriyaal aan ficilku halkiisa ka dhaqaaqaynin. Marka kuwan imika aynu ka hadlayno waa kuwa ficilka aan meeshooda aanu ka tegaynin. Tusaale ahaan wir sind in die Stadt gegangen, anagu waxaan joognay magaalada. Und wir haben uns alles angesehen. Marka haben hoos aynu ka aragnay. Hadda waxaan arki doonaa haben oo xagga dambe tegi doonta oo la oran doono wir uns alles angesehen haben oo ficilku xagga dambe uu ku dhacay doono. Laakiin kuwani ma bedelaan meesha uu ficilku yaalo. Wir sind in die Stadt gegangen und wir haben uns alles angesehen. waa laba hadal oo labaduba saxdii ay yihiin waana midna ficilku meeshiisii ka dhaqaaqin laakiin waxaa isku xiriirisay und. Number 3, ich muss mich beeilen. Waa in aan degdega anigu. Denn maxaa yeelay die Gäste martidii sind bald hier. Ayaa halkan si degdega u imanaysa. Ich muss mich beeilen. Waa in aan degdega. Denn weil because maxaa yeelay die Gäste sind bald hier. martidii ayaa halkan si dhaqsaha u imanaysa. Marka ficilka sind halkiisii saxdan buu yaalaa. Die Gäste sind bald hier. Marka ficilku halkiisii kama aan raaqin. Number 4, kannst du das alleine machen? Ma samayn kartaa adiga keligaa? Marka koomooyinkaasi waa muhiim. Oder soll ich dir helfen? mise waan ku caawiyaa. Marka soll ich miyay tahay marka inaan ku caawiyo mise waan ku caawiyaa ma noqonaysa. Kannst du das alleine machen? Oder soll ich dir helfen? mise waan ku caawiyaa. Soll maadaama ay ish xagga hore kasoo martay macnaha hadalkun baa su-aala ee macnaha ficilku halkiisii kama oonu dhaqaaqin. haddii aanay kelmadani su-aal ahaan lahayn xagga dambe waxay noqon lahayd oder ich soll dir helfen. adiga ayaan ku caawinayaa. ich soll bay noqon lahayd. laakiin maadaama ay su-aal tahay su-aal nimadkaas ayaa soll xagga hore u soo martay ficilku halkiisii kama aanu dhaqaaqin. marka kuwani ficilka ma dhaqaajiyaan ama ficilka ma bedelaan meesha uu yaalo. marka sidaas ayay tahay inaad u fahamtid. haddeen hore usii soconno number 5, im Sommer bleiben wir zu Hause. Sommarka waxaynu joogaynaa guriga. Aber laakiin im Winter marka jiilaalka ay tahay waren wir in die Berge. waxaynu tegaynaa markaasi buuraha. marka labada ficilba waxay yeelaan meel sax ay yeelaan. im Sommer sommarka gudihiisa bleiben waxaynu joogaynaa wir inagu zu Hause guriga. oo im Sommer maadaama uu hadalku ku bilaabmay wir bleiben ma noqonayso. hadalka maadaama uu qoraal hore ka horeeyo wir bleiben xagga dambe ay soo maraysaa. bleiben wir bay noqonaysaa. la odhan maayo wir bleiben zu Hause maadaama hadalku qoraal hore kasii horeeyo. im Sommer bleiben wir zu Hause guriga ayaan joogaynaa. marka ficilku isma aanu bedelin. aber im Winter jilaalka waren wir in die Berge waxaanu tegaynaa markaasi buuraha. faaqana sidoo kale wir faaqan la odhan maayo maadaama in Winter ay ka horeysatana ficilku xagga hore buu soo maraya. faaqan wir bay noqonaysaa in die Berge. Number 6, wir gehen nicht ins Kino. ma tegayno wir gehen nicht ins Kino. kiinada ma tegayno. sondern laakiin waxaan door bidaynaa ama laakiin wir gehen ins Theater. theaterka ayaan tegaynaa. marka sondern waanigi idhi laakiin waxaan door bidayaa waanigi idhi
واسك لكن وبنقول صح سومالي لأنه أجنو لكن هذه الشيء waxay muujinaysaa hadalka hore inaan rabin ee ka dambaad rabtid saalaan fiigeen nish inskino ma tagino keenada ama inskino sonden laakiin waxaan doorbidaynaa inaan tagno fiigeen instiyaata tiyaatarka laakiin waxaan taginaa sonden laakiin fiigeen instiyaata tiyaatarka ayaan taginaa marka taas waa saas xiriiryaal aan bedelin meesha ficilku yaalo marka xiriyaashan kale ee iyaguna soo socda iyaguna ma bedelaan meesha uu ficilku yaalo sida kuwa hore aan soo aragnay xiriyaashan waxaa ka mid ah entweder oder oo wada socota marka entweder punkt punkt dhibcaan dhignay dhibcahaasi hadal baa soo geli doona oder marka iyaduna ora ba madana soo geli doonta ingiriisiga waxaa dhigantaa either or mid uun bay noqonaysaa so for dhibcaan dhignay alles auch waxa weeye both and labadaba weeye marka weder noch waxa weeye neither nor midnaba marka waan arki doonaa iyaga oo tusaale jira ich komme entweder heute oder morgen ich komme waan imanaya entweder heute maanta ayaan imanaya oder morgen ama bari mid uun baan imanaya maanta baan iman ama bari mid uun baan iman saas ayay noqonaysaa Soomaaliya ich komme entweder heute oder morgen maanta ayaan imanaya ama bari mid uun baan iman doonaa wey mid uun baan imanaya number 2 wir werden entweder ein Hund oder eine Katze kaufen wir werden werden مستقبل بشيء wir werden entweder ein Hund oder eine Katze kaufen waxaynu hal bisad ayumaynu soo iibsan doonaa mid entweder ein Hund oder eine Katze kaufen ama waxaynu soo iibsan ay ama bisad mid weeye marka entweder oder waxa weeye mid bay noqonaysaa Soomaaliga wir werden entweder ein Hund oder eine Katze kaufen waxaynu soo iibsan doonaa hal ay ama hal bisad mid baynu soo iibsan doonaa number 3 entweder gehst du sofort nach Hause ama si dhaqso ah baad gurigii u tagi oder du bleibst hier ama halkan aad joog marka mid baad yeeli entweder gehst du sofort nach Hause oder du bleibst hier ama halkan baad joog marka sidaas ayuu macno u dhacaya number 5 so for meine Eltern alles auch meine Geschwister waren dagegen so for alles auch waxaan leeyahay labadaba way so for meine Eltern waalidkay alles auch meine Geschwister iyo walaaladayba waren dagegen halka waa ay joogeen waren dagegen waa ay joogeen meeshaas way ku sugnaayeen so for meine Eltern alles auch meine Geschwister waren dagegen marka saas u shaqeynaysa labadaba way joogeen way meine Eltern alles auch meine Geschwister waren dagegen macnaha labadaba way joogeen number 4 ich spreche sofort English alles auch Deutsch waxaan ku hadlaa markaas Ingiriisiga iyo Dutchka labadaba sofort English alles auch Deutsch marka labadaba waan ku hadlaa wey both English and Dutch taasoo kale ama both English and German taasoo kale noqonaysa number 7 weder er noch ich war begeistert marka tan dambe waxay noqonaysaa mid kaayabana wey weder er noch ich isaga iyo aniga mid kaayabana war begeistert ma aanu xiisaynin marka weder er noch ich war begeistert mid kaayabana ma aanu xiisaynin weder er noch ich war begeistert mid kaayabana ma aanu xiisaynin number 8 ich bin weder arm noch reich mana ihi faqiir mana ihi markaasi midnaba ma ihi ich bin weder arm noch reich faqiirna ma ihi taajirna ma ihi
saas oo kale midnaba ma yihin. Es ist weder sauer noch süß. Es ist weder sauer noch süß. dhanaana maaha macaana maaha, saas oo kale ay noqonaysaa macnaheedu. xidhiidhiyaasha bedela meesha uu ficilku yaalo, bal xidhiidhiyaashana aynu eegno. kuwii aan hore aynu soo aragnay ma bedelaan ficilku meesha uu yaalo. haddaba xidhiidhiyaashan imika aynu akhriyi doono waxa ay bedelaan meesha uu ficilku yaalo, ama meeshii uu ficilku lahaa sida caadiga ah ayay bedeli doonaan. ficilkuna waxa uu tegi doonaa dhammaadka weedha ama sentenska. Er hat mir gesagt, comma. Er hat mir gesagt, aniga waxa uu igu yidhi, comma, dass wir morgen eine Prüfung haben, in einem Beritoore aanu imtixaan leenahay. Er hat mir gesagt, comma, das. marka laba das baa jira, midna waa s keliya, midna waa laba s. markay laba s tahay waa xiriiriye, markay s keliya tahayna waa maxay? waa article. marka waxa weeye das wir morgen eine Prüfung haben. marka haben oo ficilkiya wuxuu tegay dhammaadka weedha. sida caadiga waxay ahayd wir haben morgen eine Prüfung. wir habentu waxay ku xigtay wir oo wir haben bay ahayd. marka imika odhamayno wir haben morgen eine Prüfung maadaama aan das isticmaalay. Er hat mir gesagt, dass wir morgen eine Prüfung haben. marka ficilkii xagga dambe ayuu tegaya. okay, number 2. weißt du, miyaad ogtahay, ma garanaysaa, ob wir morgen eine Prüfung haben, inaynu berri leenahay imtixaan iyo in kale. marka ob macnaheedu waxa weeye in weather, ingiriisiga weather, inaynu waxaa leenahay iyo inaynan lahayn. weißt du, miyaad ogtahay, miyaad garanaysaa, weißt du, miyaad garanaysaa, ob wir morgen eine Prüfung haben, inaynu berri leenahay imtixaan iyo inaynan lahayn. macnaha ma kala ogtahay inaynu imtixaan leenahay berri iyo inaynan lahayn, ma kala ogtahay. marka ob macnaheedu saas u shaqeynaya, inaynu waxaas leenahay iyo inaynan lahayn bay noqonaysa. commit isoo raac, commit, comma, marka commadaas waa muhiim. commit isoo raac, wenn du Zeit hast, haddii aad waqti haysid. marka wenn baynu isticmaalnay, haddii du Zeit hast. marka hast waa ficilkii xagga dambe tagtay. la odhan maayo wenn du hast Zeit, la odhan maayo. waxa la odhanayaa wenn du Zeit hast. marka ficilku xagga dambe ayuu tegaya. number 4. haddaynu wenn ku bilowno weedha, wenn ich reise, haddii aan safrayo, comma. marka hadii jeer wenn ich reise, comma. reise xagga dambe ay tagtay. amoodin inay sentenska dhexda kaga jirto, waayo comma markastoo comma aragtid hadal baa dhammaaday, hadalka kalena waa hadalkii kale weeye. laba hadal oo isku xidhmaya hadii jeer. wenn ich reise, haddii aan safrayo, waa hadal buuxa weeye. marka la odhan maayo matalan tusaalaan wenn ich reise waxay tagtay dhammaadkii way tagtay. wenn maadaama oo sentencku wenn ku bilaabmay, ich reise. haddii wax kale ay ku xigi lahaayeen ich way soo geli lahaayeen, reisena xagga dambe tegi lahayd marka. laakiin wenn ich reise, haddaan safrayo, comma, esse ich immer so viel, wax badan ayaan cunaa. marka reise waa naga hoos ka xariiqnay, dhammaadka weedha ayay taalla. hadalka hore dhammaadkiisa taallaa, hadalka dambena waa kusii daba xidhiidhsan yahay, waa hadalkii kale. oo xidhiidhiyaashu waxay isku xidhiidhiyaan had iyo jeer, laba hadal bay isku xidhiidhiyaan. okay, number 5. weißt du, comma, miyaad ogtahay, wann der Zug ankommt, xilliga uu tareenku imanayo. wann goorma ama goorta uu tareenku imanayo, wann der Zug ankommt. marka wann maadaama oo meesha ay taalo, ankommt ficilku waa maxaa ka dama tago, wann der Zug ankommt. okay, number 6. als ich in Berlin war, habe ich meine Tante besucht. als ich in Berlin war. markii macnaha als waxay noqonaysaa macnaheedu markii ich in Berlin war, markaan Berlin joogay, habe ich meine Tante besucht.
waxaan habe ich meine Tante besucht waxaan booqday eedaday markaan Berlin joogay waxaan booqday eedaday marka alles had iyo jeer waxa loo isticmaalaa single event macnaha wax tagay bay had iyo jeer loo isticmaalaa alles ich Kind war markaan caruurta ahaa alles ich jung war markaan dhalinyarta ahaa marka had iyo jeer waxa loo isticmaalayaa wax tagay baa loo isticmaalayaa alles ich in Berlin war markaan Berlin joogay wax tagay weeye alles ich in Berlin war habe ich meine Tante besucht waxaan booqan jiray waxaan habe ich meine Tante besucht waxaan booqday eedaday markaan Berlin joogay waxaan booqday markaas eedaday number 7 ich habe in Bonn gewohnt als ich klein war markaan yaraa ich habe in Bonn gewohnt waxaan ku noolaa Bonn magaalada Bonn leeda als ich klein war markaan yaraa marka waa ficilkii xagga dambe tegaysa marka ich habe in Bonn gewohnt als ich klein war markaan yaraa number 8 ich habe die Stelle angenommen weil ich Geld brauche ich habe die Stelle angenommen shaqada waan qaatay weil ich Geld brauche maxaa yeelay waxaan u baahanahay lacag ich habe die Stelle angenommen shaqadaas waan qaatay weil maxaa yeelay ich Geld brauche waxaan u baahanahay lacag marka brauche oo ficilkii xagga dambe ayay tagtay markaas number 9 da wir nicht viel Zeit haben maadaama oo aynan waqti badan haynin können wir nicht lange bleiben waa inaynan waqti dheer waa inaynan joogin marka daa waxa u dhigantaa since maadaama da wir nicht viel Zeit haben maadaama oo aynan waqti badan hayn können wir nicht lange bleiben waa inaynan waqti dheer joogin number 10 seitdem ich hier bin ilaa iyo intii aan halkan joogay habe ich keine ruhige Minute ma aanan helin hal mir oo deganaanshiya seitdem waxa u dhigantaa ilaa iyo intii seitdem ich hier bin ilaa iyo intii aan halkan joogay habe ich keine ruhige Minute ma aanan helin hal minute oo deganaanshiya macnaha ma nasan weeye ruhig waxa weeye deganaanshiya weeye number 11 nachdem waxa weeye kadib weeye nachdem wir gegessen haben kadib markaynu wax cunno gehen wir ins Kino waxa aan tegaynaa sinimoga ama shaleemada marka hadal horena way ku jirtay ins Kino waa shaleemada ama waa sinimoga theaterna waxa weeye theaterka ay noqonaysaa note nachdem haddii la yidhaha oo la kala fujiyo waxay noqonaysaa nachna waxay noqonaysaa preposition demna waxay noqonaysaa article marka imika ma noqonayso xiriiriye nachdem essen cuntada kadib gehen wir ins Kino waxaan tegaynaa sinimoga marka nachdem essen gehen wir ins Kino cuntada kadib waxaan tegaynaa sinimoga marka nach waxa weeye preposition ama preposition nachher haddii la yidhaahdo nachher gehen wir ins Kino waxay kadib waxaan tegaynaa sinimoga nachherna waxay noqonaysaa arfeer oo iyadana waxa weeye ficil caawiye marka waad ogaatid inayna ahayn xiriiriye aussehen sieh die Schuhe aus marka aussehen weeye iska saaristii weeye sieh die Schuhe aus kabaa iska saar before ka hor du ins Zimmer kommst intaan qolka soo gelin marka ins waxaa loo yidhi in das Zimmer bay ahayd in iyo das baa la isku daray marka before ka hor du ins Zimmer kommst intaan qolka soo gelin before wir essen intaynaan wax cunin ka hor gehen wir spazieren waxaan tegaynaa socod spazieren in meelaha soo martid weeye soo jimicsatid
marka before daasi waxa weeye xiriiriye weeye laakiin note waxaad ogaataa for them haddii la yidhaahdo waxa weeye for waa preposition themna waa article marka for them haddii la yidhahdo xiriiriye maaha for them essen cuntada ka hor gehen wir spazieren waxaan tegaynaa soo socod iyo maaragtay jimicsigan meelaha soo marmarayna marka for them xiriiriye maaha for waxa weeye preposition themna waa article for them essen gehen wir spazieren marka for maxay noqotay preposition ama ingiriisiga waxaa la yidhaha preposition kaasay noqonaysaa vorher haddii la yidhaha vorher ka hor gehen wir spazieren waxaan tegaynaa spazieren iyo soo socod iyo jimicsigaasaynu baxaynaa marka vorher arfayb weeye waa ficil caawiye weeye tana maaha markaasi xiriiriye maaha markaasaa waa inaad u ogtahay ishtele den wecker waxaan dhigayaa saacadda toosisada ishtelen waa dhigis weeye ishtele den wecker waxaan dhigayaa saacadda toosisada ah damit meel ich nicht so lange schlafe aanan wax badan seexanaynin marka ishtele waxaan dhigayaa den wecker saacadda toosisada ah marka meel baa la dhigaya damit waxay u taagantahay meeshii la dhigi lahaa damit meel ich nicht so lange schlafe aanan wax badan seexanaynin marka damit waxay u taagnaanaysaa hadalka hore wixii uu ku saabsanaa unbay hadii jeer la xiriiraysaa tusaale kale haddaan soo qaato ich suche einen Deutschkurs, damit ich besser Deutsch lernen kann. Marka damit waxay u taagantahay Deutschkurska u taagantahay ich suche einen Deutschkurs waxaan raadinayaa Deutschkurs damit Deutschkurskaas oo ich besser Deutsch lernen kann aan Deutschka si fiican ugu sii baran karo marka mar walba damit waxay u taaganaysaa maxay hadalka hore marka sidaas ayaa laga rabaa inaad u fahantid damit mar walba waxay u taaganaysaa shayga xagga hore aad ku soo sheegtay haddii aan soo qaato sentenska ugu horeeya ich erhole mich erhole macnaheedu waxay noqonaysaa relax inaad ku raaxaysatid shay aad samaynaysid ama aad qabanaysid ich erhole mich waan ku raaxaystaa in aan ich Klavier spiele aan piyaanaha aan tumo marka Klavier waxa weeye ingiriisi waxay noqonaysaa piano af soomaalina waxa weeye piano bay noqonaysaa piyaanada muusiga ee la garaaco ee la tumo marka in them ingiriisiga by bay noqonaysaa by and laakiin af soomaaliga in aan bay noqonaysaa ich erhole mich waan ku raaxaystaa in them ich Klavier spiele inaan markaasi piyaanaha tumo okay false macnaheedu waxa weeye inaad marka ugu horeysa af soomaaliga waxay noqonaysaa haddii false marka false es später regnet haddii ay später macnaha mar dhawaadee roob noqoto bringe ich einen Schirm mit waxaan soo qaadanayaa dalaayada roobka markaas marka falsena waxay noqonaysaa haddii oo waxay la macno tahay wenn iyo kuwaas oo kale falls es später regnet bringe ich einen Schirm mit marka mit bringen bay ahayd marka waxa weeye trennbare verben oo verbka waa la kala jarayaa wax la geynayaa mit xagga dambe dhigaysa marka aniga muhiimadeena waxa weeye false oo xiriiriyey es später regnet waa ficilkii waxa ka dambe u tagay comma marka hadalkii kale ayaa nebensätziga markaasi isna xaggan soo gelaya bringe ich einen Schirm mit marka waxa weeye haddii hadhowto la roob da'o bringe ich einen Schirm mit marka waxay noqonaysaa inaan soo qaato dalaayada roobka sie kommt mit way in raacaysaa obwohl inkastoo sie kein Geld hat ayna lacag haysanin sie kommt mit
waa ayna raacaysaa obwohl inkastoo sie kein Geld hat ayna lacag haysanin. während ihr spielt markaad idinku ciyaaraysaan. während ingiriisiga waxaa u dhigantaa while. marka während ihr spielt markaad idinku ciyaaraysaan comma müssen wir arbeiten waa inaan shaqaynaa. marka während waxaa loo isticmaalayaa laba dhacdo oo labaduba isku mar ay dhacayaan. während ihr spielt markaad idinku ciyaaraysaan müssen wir arbeiten anagu waa inaan shaqaynaa. marka qaarna way shaqaynayaan qaarna waxbay ciyaarayaan, laakiin labada dhacdaba waxay dhacayaan isku waqti bay dhacayaan. marka während sida ayaa loo isticmaalayaa laba dhacdo oo labaduba ay isku mar dhacayaan. während ihr spielt müssen wir arbeiten. wir kommen so bald wir hier fertig sind. wir kommen waanu imanaynaa so bald sida ugu dhaqsaha badan wir hier fertig sind aanu halkan diyaar ugu noqon karayno. macnaha waxaanu u imanaynaa sida ugu dhaqsaha badan in halkan diyaar aan ugu noqon karayno wey, ama aan ugu noqonayno diyaar. wir kommen so bald wir hier fertig sind. marka so bald waxa way xidhiidhiye wir hier fertig sind xagga dambe la geeyo. la odhan maayo so bald wir sind hier fertig, waxaa la odhanayaa so bald wir hier fertig sind. wir spielen so lange wir noch können. marka so lange waa xidhiidhiye. wir spielen waanu ciyaaraynaa so lange inta ugu dheer baan ciyaaraynaa wir noch können ee aanu karayno. markaas so lange macnaha as long as macnaha marka leenam waxa inta ugu dheeraan macnaha aan kari karayno. so lange inta ugu dheer wir noch können ee aan awoodi karayno. marka so lange waa xidhiidhiye wir noch können tan xagga dambe tahay. marka wir spielen waanu ciyaaraynaa so oft inta ugu badan ee wir können ee aan awoodi karayno. marka saas oo kale noqonaysa. note waxaad ogaataa that question words in erayada wax su'aaleedka sameeya sida ve was maxay, warum sabab, wann goorma, wo xagee, wohin xagee, wie sidee, wie oft badanaa, wie lange iyo wie viel iyo womit. intuba erayadan su'aalaha sameeya oo dhan dhammaantood halka af Soomaaliga waxaa ku qoran erayadan su'aal sameeyayaasha ah oo dhami iyaguna ficilka waxay ku tuuraan xagga dambe. marka ficilka iyaguna xagga dambe ayuu tegaya. markaasi ich weiß nicht ma garanayo wie viel es gekostet hat inta uu qiimaheedu ahaa. ich weiß nicht wie viel es gekostet hat. marka la odhan maayo wie viel es hat gekostet, waxaa la odhanayaa wie viel es gekostet hat. marka wie viel waxa weeye waa su'aal sameey. xiriiryaashii waynu ka soo baxnay. marka waxaa muhiim ah inaad ogaatid erayada kale ee su'aalaha erayadan su'aal sameeyaha ah iyaguna inay ficilka xagga dambe ay geynayaan. ich weiß nicht ma garanayo wie viel es gekostet hat inta uu qiimaheedu ahaa. ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung wax fikrada kama haysto. ich habe keine Ahnung ma garanayo weeye. warum ich das gemacht habe sababta aan u sameeyey. warum ich das gemacht habe sababta aan taas u sameeyey. ich habe keine Ahnung warum ich das gemacht habe. weißt du miyaad ogtahay weißt du ma ogtahay wer der Mann dort drüben ist ninka xaggaas saaran ciduu yahay. weißt du wer der Mann dort drüben ist. miyaad garanaysaa ninka xaggaas saaran sare cida uu yahay.
droben dood droben xaggaas weey wer cida uu yahay kuma ay noqonaysaa der man dort droben ist. marka werna waa su'aal sameeye ficilkina ist xagga dambe u tagay saas inaad la socotid oo maskaxda ugu qabatid ayaa muhiim ah. A few things to keep in mind. dhowr shay maskaxda ku hay. Then Ingiriisiga waxay noqonaysaa if, Soomaaligana waxay noqonaysaa haddii. waxay la xidhiidhaa mustaqbal ama soo celinta wax waqti tegay dhacay. haddaba number 1, wenn ich Zeit habe, haddii aan waqti hayo, werde ich dich besuchen, waan kusoo booqan doonaa. ama haddii aan waqti helo, waan kusoo booqan doonaa. markaa mustaqbal bay saas ay noqonaysaa. number 2, ich habe immer meine Tante besucht. eedaday mar walba waa aan booqan jiray. wenn ich in Deutschland war, markii aan Deutschland joogay aan ku sugnaa. markaa wenn imika haddii noqon mayso waxay noqonaysaa markii, oo waxa Ingiriisiga u dhigantaa when, markaan aan joogay Deutschland. wenn ich in Deutschland war, markii aan Deutschland joogay. wenn markii bay noqonaysaa. als Ingiriisiga waxay noqonaysaa when ama marka ama markii bay noqonaysaa. Soomaaliga waxay la xidhiidhaa hal dhacdo oo waqti tegay ah, oo inagii markii tusaalaha kusoo qaadanay amaba tusaalayaasha hoose ayaynu ku arki doonaa sida ay noqonayso. als waxaynu u isticmaalnaa baan nidhi hal dhacdo oo waqti tegay ah. tusaale ahaan als ich jung war, markii aan jung, markaan inanka yar ahaa ama dhalinyarta ahaa. als ich jung war, markii aan inanka yar ama dhalinyarta ahaa. habe ich in Kalifornien gewohnt, waxaan ku noolay California. als ich jung war, als ich Kind war, markaan caruurta ahaa. tusaale ahaan habe ich in Kalifornien gewohnt, California ayaa aan ku noolaa. ich habe meine Tante besucht, eedaday waan booqday. als ich letztes Jahr in Deutschland war, markii aan joogay jarmalka. ich habe meine Tante besucht, eedaday waan booqday. als markii ich letztes Jahr, sanadkii u dambeeyay in Deutschland war, aan joogay jarmalka. markii aan sanadkii u dambeeyay aan jarmalka joogay. anaa eedaday waan booqday markii aan sanadkii u dambeeyay aan Deutschland joogay. saasoo kale noqonaya macno. markaa wax tegay weeye. ich habe meine Tante besucht, als ich letztes Jahr in Deutschland war. haddaba wenn inayna kaaga qaldamin baa la rabaa. wenn oo wenn iyo van way kala duwan. wenn macnaheedu waxa way aad wataan goorma weeye. ich weiß nicht, ma garanayo, wann der Zug ankommt, goortuu imanayo tareenku. ich habe vergessen, waan iloobay, wann ich das letzte Mal in Deutschland war, markii ugu dambeysay aan Deutschland joogay. ich habe vergessen, wann ich das letzte Mal in Deutschland war, markii aan ugu dambeysay aan Deutschland joogay. markaa sidaas ay taasina noqonaysaa. casharkeennii maanta waxaa noogu egayaa intaas. waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiinba. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan idin leenahay wixii talo iyo tusaalahaba waxaad ku dhaafi kartaan qaybta commentka. haddii ay jiraan casharo muhiim ah oo qofku uu tabanayo in lasoo duubo oo muhiim ah, fadlan kusoo qor qaybta commentka. waxaan idin leenahay dhammaantiinba. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.